ورحمة الله وبركاته. waxaan marka hore halkaan salaan diirad la u diraya shacbiga reer koonfur galbeed iyo dagaaladii halkaas ka dhacay aad ayaan uga xunnahay annagoo dhibaanadii federaalka lama filaan ayay arrintaasi laakiin waa laga fursan waayay in meeshaas lagu dagaalamo falillaahi alxamdu dagaalkii waa la soo afjaray qolo mooriyaan ah oo dhibaato ku haysay shacbiga reer koonfur galbeed ayaa maanta carrada laga safeeyey hambalyaan leeyahay ciidamada daraawiishta reer koonfur galbeed aada u mahadsantihiin sida waajibka u gudateen intaas kadib waxaan kaloo aad uga xunnahay in lagu kor dagaalamo shacbiga reer koonfur galbeed ayagoo jiraan abaaro dhibaatooyin bahsan biyo la'aan taasna waxay tahay mid aad noo taabatay waxaan kaloo rabaa inaan halkan baaq ugu diro siyaasiyiinta ku lug lahaa arrintaasi oo koonfur galbeed ka socoto waxaan leeyahay xilka ilaa baxsho qadartiisana kursiga laga helaa laakiin dhiig shacbiga reer koonfur galbeed in wax laga raadiyo arrin sax ma ahan waxaan iyagan ka codsanayaa inay iimaanka isgeliyaan ay xilligooda sugtaan hadday damac ka leeyihiin inay wax xukumaan waxaa kaloo baaq halkan u dirayaa reer koonfur galbeed faham fiican ay ka haystaan siyaasadda Soomaaliya waana fahmi karaan say ay wax yihiin marka arrimahaas dadka dabada ka riixaya ama oo dagaalada meesha ka socdaan xoojinaya waxaan leenahay iimaanka isgeliya reer koonfur galbeed fahamkooda intaas waa ka sareeyaa waana ka fiican yihiin dad wax gartana waa yihiin marka waxaan rajaynaynaa in magaaladaas ay ahaato nabadgelyo reer koonfur galbeedna ay ku noolaan nabadgelyo barwaaqo barbare iyo baraare waxaan idin leenahay reer koonfur galbeed dulqaata insha allahu tacaala waana laga bixi doonaa aadaana u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi waqtigaagu waa cimri ilbidhiqsi kastoo aad dayacdo waa qayb ka mid a cimrigaaga oo tegey dibna aan loo soo celin karin iminka fursad dooro oo moobilkaaga gacanta uga faa'iidaysa inaad diinta islaamka iyo qur-aanka alle aad ku barato maalin kasta in yar oo wakhtigaaga ka mid ah dugsiga miftaax qur-aan online oo ay dhigaan macallimiin culimo ah ayaa bishan qaadanaya arday cusub qaybta dadka waaweyn iyo qaybta carruurta waxaana lagu dhiganayaa qur-aanka higaada iyo culumta shareecada islaamka waxaanu dugsigu bixin doonaa shahaadooyin ee haatan ka wac taleefanada kuu muuqda.